khabiirka ciyaaraha ee Paul Marston oo saadaaliyay kulamada horyaalka Premier League ee toddobaadkan haddaba muxuu ka yiri kulanka adag ee derby Manchester muuqaalkan ayaa ku wadaagi doona balse intaan gudaha kalin waxa ka codsanay inaad ku soo biirto bartida TikTok oo aad follow soo diraado sidoo kale dirista xiriir ka badan aad taabato calaamada koob linki si uu dad badan u gaaro sidoo kale soo booqo barayga kale ee Facebook iyo YouTube maasanid indhaha taageerayaasha kubadda cagta waxay ku jeesan doonaan garoonka Etihad Stadium maalinta xataa halkaasi oo uu ka dhici doono kulanka 192 ee Manchester derby oo isku arkayaan kooxaha ay kala hogaamiyaan Pep Guardiola iyo Erik ten Hag safarka ay Manchester United ugu dhageysay Etihad Stadium ayaa isbedel ku sameyn kara fikirka sare ee tartanka horyaalka Premier League haddii ay Reed Phillips ay dhibco ka soo hesho halka City oo 3 dhibcood heshana ay hoos u soo celinayso Manchester United oo sare u soo qaadaysa madaxa kulamada ugu dambeeyay ka hor inta aanay Fulham guuldareysan kala kulmin Liverpool oo hoggaanka haysa isla markaasna ay u soo laabteen ciyaartoy dhaawac kaga maqnaa kulankii FA Cup ee Southampton ayaa waxa ay sabtida maanta ah u dhageysay naadiga Nottingham Forest oo haddii ay ka soo guuleysato ay si dheereysan doonto hoggaanka ilaa inta ay ka soo baxayaan natiijooyinka kulamada ay dheelayaan kooxaha Manchester City iyo Arsenal Mauricio Pochettino oo kooxdiisu ka soo laabatay jabkii ka soo gaaray finalkii Carabao Cup ee Wembley oo Liverpool ay ku salcisay isla markaasna arbacadii ka adkaatay naadiga Leeds United wareegga shanaad ee FA Cup ayaa waxa ay marti u noqon doontaa Brentford oo waqtigu ku adag yahay halka Arsenal ay u dhageyso naadiga Sheffield United haddaba khabiirka ciyaaraha ee Paul Marston ayaa saadaaliyay kulamada asbuucan isagoo uu guulo waaweyn u rajeeyay kooxaha kubadda cagta Manchester City Liverpool iyo Arsenal khabiirka ciyaaraha ee Paul Marston ayaana kulamada horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League waxa uu kulanka derby Manchester uu ku saadaaliyay 3 gool waxba iyadoo Manchester City ay kaga adkaan doonto naadiga Manchester United Liverpool kulanka ay la ciyaarayso naadiga Nottingham Forest waxa uu ku saadaaliyay 2 gool inay ku adkaan doonto naadiga Liverpool Arsenalna waxa uu sheegay kulanka ay u dhageyso naadiga Sheffield United 3 waxba ay kaga soo adkaanayso Newcastle ayuu 3-2 gool ah u rajeeyay kulanka ay la ciyaarayso naadiga Wolves sidoo kale kulanka Tottenham iyo Crystal Palace Paul Marston waxa uu ku saadaaliyay 3 gool inay ku adkaanayso naadiga Tottenham Aston Villa kulanka ay la leedahay naadiga Luton waxa uu saadaaliyay in gool 2-1 ay ka gaarayso kooxdaasi halka Chelsea iyo Brentford kulankooda uu ku saadaaliyay in Chelsea ay ku adkaan doonto 2 gool iyadoo marti ah adiga ahaan sida u aragtaa saadaasha khabiirka ciyaaraha ee Paul Marston ee kulanka Manchester derby mise qabtaa in kulankaasi uu ku soo dhamaan karo 3 gool waxba ay ku adkaanayso naadiga Manchester City ku soo qor aragtidaada qaybta hoose ee commentiga